halka aad naga daawanaysaan waa Somali Media Action. hadday tahay markii kugu soo horeyso oo soo booqato Somali Media Action, fadlan walaal subscribe-ka naga ilaawin. waxaan ka hadlaynay barnaamijkii aan kaga hadlaynay fanaanada diinta islaamka qaadatay ee Jennifer Brown. warbixinteedii aadka u dheereed iyo waraysigii ay siisay TV-ga caanka ee Al Jazeera in aan bulshadana daawanaysa aan ugu turjino afkooda afka Soomaaliga. haddaba qaybo badan ayaan ka soo hadalnay. haddaba caawa ku soo dhawaaday qaybtiisii 6 waraysigii Jennifer. ku weydiinaa qisada aad ku islaamtay, sidee u qanacday diinta islaamka? waxaadna tiri dhageysiga qur-aanka waxaan bilaabay 2010 diinta islaamkana waxaan qaatay 2013. qof mee kugu qanciyay inaad diinta soo gasho? aaminsanahay waxa i saameeyey inuu ahay safarkii aan u soo aaday dowlad muslin ah. waxaan u soo safray Morocco markii aan dhammaystay waxbarashada jaamacadda Miigan, waxayna ahayd 2012. inta lagu guda jiray fasaxii dayrta waxaan booqday gobollo kala duwan ee Morocco. waxay ii ahayd waqti iiqaas ee magaalada. mar waliba waxaan maqlayay aadaanka oo kor loo qaaday dhammaan masaajidda. waxay ugu yeerayeen salaada inta lagu guda jiray aadaanka. arrinkaa wuxuu igu noqday mid saameyn xoogan igu yeesho. waxaan ahaydna markii ugu horreysay aan maqlo. sidoo kale dadka sida ay ii sharfayeen waxay igu yeelatay saameyn xoogan. waxaan dareemay kala duwanaansho in ay jirto. waxaan jeclaaday in aan ogaado soo jiidashada. ani ahaanteydu waxaan ahay ruux safar u soo baxay, waxaana jeclaystay in aan ogaado waxa socdo. waxaan go'aansaday in aan barto islaamka sida aad u ballaaran. waxaan jira waxyaabo badan oo aan horay ani igu dhicin, taasoo aan awood u lahayn in aan sharxo, taasoo igu dhawaaqsay in aan ku dhawaaqo diinta islaamka kadibna aan ku qanco. shadaadii Morocco waxay la xiriirtay in aad meesha ku guursatay, aadna ku dhashay gabartaadii Qamar. miyuusan arrinkaas sidaa ahayn? waa kuma qofka u bixiyey Qamar, adiga mase aabaheed waay? aniga ayaa u dooray magaca Qamar. arrinka run ahaantiisa ayaa ah inaan anigu u dooray, maxaa yeelay waxay xiriir dheer la leedahay suuradda Qamar. markaan uurkeeda lahay gabartayda Qamar ayaan go'aansaday inaan u bixiyo magaca Qamar. waa haddii ay noqoto gabar. magacaaga waxa uu soo ifbaxay 2013, waxaana ku dhawaatay in aad furto markaskii ugu horreeyay kaasoo lagu qabto tartanka heesaha. kadibna muddo 3 sano ah laguma arkin. maxaa keenay in lagu waayo? waxaan aaday safar ani ii gaar ah. markii dhab ahaantii laga hadlo, markaad leedahay cunug yar ama cunug yar, waxaa nolosha ku dhacay isbeddel aad u weyn. waan jeclaa inaan qaado tilaabo aan gadaal u soo fiirinayo saan wax weliba uga fogaado sida aan u helay wanaag. waxaan aaminsanahay in aan helay wanaagga.